halkani waa hoteelka Maasoor ee magaalada Hargeysa waxaana munaasabad loogu qabtay dabaaldega xuska sanad guuradii 700aad ee ka soo wareegtay markii lagu dhawaaqay ururka SNM 1981 6 bishii Abriil waxaana munaasabadaasi soo qaban qaabisay jamciyadda Sooyaal ee ay ku midoobeen mujaahidiinta SNM waxaana ka qayb galay munaasabadaasi wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed wasiir ku xigeenada wasaaradda xanaanada xoolaha Maxamed Xaashi Cilmi wasiirka hore wasaaradda maaliyadda Xasan Guure Jaamac gudoomiyaha madasha wada tashiga Professor Cabdisalaam Yaasiin iyo mujaahidiin kale oo dhamaantood ka tirsanaa ururka SNM hadalladii kala duwanaa ee madashaasi xuska ahayd laga jeediyayna waxa kamid ahaa SNM ayaa dowladnimada ka madaxay SNM baan markaa wuxuu tusaaleeyay dowladnimadaasi ay halkii la doonayay meel wanaagsan inuu joognay marka kor uga sii qaadanahay waynu keenay waynu ka badinaynay waliba boqol kale oo afar stage ayaynu wadnay dadkeenu sabool kuma noolaan karo waxayna waynu shaqaysan karaa waynu isku filannahay dalkuna wuu inagu filan yahay biyaheedaynu qabsan karaa waynu dadaali karaa waxaanu dagaalanay cadaalad SNM haddii cadaalad ugu weyn tahay xog ku hayso intii kale wax saarayna wala fayda soo gaar dagaalka waxaa la yiraahdo fadhiga 25 sano ilaa 10 sano dowladda 27 sano isku yaray oo lama inuu cadaalad wada hayna ma hayna kaga dhameeyo waxa laga maarmaanay innaka lafteena jamciyadii Sooyaal ayaa ina maamusha innaka lafteenu SNMT hadaynu nahay innaka lafteenu waxaynu baaneynayno wax qabsano xorriyadan aan ku dhahday ragii guusha keenay raga maanta halkan ka fadhiya raga ka nool intii naga geeriyootay ilaahay baynu uga baryaynaa inuu jannadii firdawsa ugu deeqo faatixadaynu maraynaa dhamaantiina waa mahadsantiin وعيدروس عبد الله إسماعيل بيرشيا تلفزيون عالمي Universal Hargeysa